السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالق سيتين. الحمد لله أنا وحان عافماذا قبنا إندو مسوف ديسن فيديو دمستر وأنا قبصان فيديو أسو دوبايا ما أنت مركب وحان أسو فديستي إن أنا هالله الرماء وكجر مجالة تاني من دير إن كهالله درت ذا أسو فديستي مركز أصحاب تقالقة هرت يوتيوب وحاوى أنا مقعيق ومرين علي يوتيوب كأداوني سيد هدرتان أكل أداوني سيد ومرين علي لايك صار فيديو مركو سوغار لايك دعوسي يوتيوب كشير له وحاو شير جرزا فيديو وانيد ووح مهم مهم أنك هلايا وهلايا أرمان أنك هلايا وأرمان مهم أرمان سيتو حارنا inay bulshada reemandheero oo dhan ay gaarto reemandheera madaxdii iyo shacabkii iyo dhalinyaradii shalay taariikhdu markay ahayd 19 waxay ku shireen meel oo hool magaalada dhexdeeda ku yaala lagu shiray hoolkaas magaalada dhexdeeda ku yaala wax badan la isku keenay waxyaabo fara badan oo la isku keenay oo wareysiga laslaha hadlay oo dhibaatooyinka magaalada laga hadlayay iyo waliba waxa hadda go'aan laga soo gaaray gabdhaha oo dhinacan Itoobiya ka imaado oo shaqaalaha ah gabdhaha dhinacan Itoobiya ka imaado oo shaqaalaha go'aan rasmi oo ugu dambeeyna laga soo saaray go'aankaas rasmiga oo ugu dambeynta ee laga soo saaray waxa laga yaabaa dad badan inaysan gaarin go'aankaas rasmiga dad badan inaysan gaarin oo warkaas faafin laga yaabaa marka adiga reemandheero tahay oo waalidkaaga uu degan yahay meeshan oo meel kale ku maqan tahay waxa laga yaabaa cidiin inay ka shaqeynayso oo gabar shaqaale ah oo dhulkaas ka imaadeen ay ka shaqeynaysaa laga yaabaa adiga kale hada hooyada ay joogto saas oo kale inay u shaqeynaysaa laga yaabaa walaasha oo social media ka warqabin oo iidan dana kale ku mashquulsan inay u shaqeynaysaa laga yaabaa sidoo kale dad kale oo social media ka warqabin inay u shaqeynaysaa laga yaabaa go'aankii ugu dambeeyay go'aankoon dambeys laga soo saaray go'aankaas kuma dambayska ah oo taariikhdaas ay lagu xusay taariikh 5 bisha labaad waxa la hayaan meesha lagu arkin ee laga saaray magaalada marka adiga hadaad ka warqabtid fiidiyogan uu soo gaaro waxa way waalidiinta u sheer gareysid walaalaha u sheer gareysid asxaabta dhan u sheer gareysid si oo hodhow ay u foojignoodaan ayagana ay u foojignaadaan oo foojignaan dheeraad ay u sameeyaan maadaama oo qof dadkan magaalada ka baxa la dhahay wax walba ay dhici kar Soomaha haade wax walba ay sameyn karaan ilaa magaalada ka baxayaan wax walba oo ay u qaas sameyn karaan marka waxaan ku leenahay daawadaha hadda daawanahay waxaa rabnaa inaad share fiidiyowga oo u share gareysid xaafadaha Mandheera meel walba ka mid ah tan xigta in gabdhaha loo shaqeeyo oo joogo guriga gabdhaha lacag haday idinku leeyihiin oo idin shaqeeyo lacag haday idinku leeyihiin lacagta siiya maadaama idinka tagayaan lacagtaas siiya lacagta idinku lahaayeen iska siiya iskana dhaqaaleeyo oo si wanaagsan oo qurux badan ku dira samcadiina iyo sharaftiina waxay ku jirtaa inaad si qurux badan idin u dirtiin haday iskuna jira xallijimkasi iskuna jira waxa la dhahaa iskuna jira waxa la jira marka idinka dadka iskana jira oo inta taariikhdaas laga gaaray iska ilaaliya marka taariikhdaas la gaarina ku xad gudbina dadka walaalihii dadka waxa way waa dad baahi idin keentay oo dani idin keentay oo cid kasta danta qabsata ku xad gudbin marka u tag waxa dhahdaa si wanaagsan ku dhameys waqtigaaga marka waqtiga si fiican ku dhameysato taariikh 5 haday lacag kugu lahayd lacagteeda bixi haday ay adiga lacag ku lahayd lacagtaada ka reebo ilaa taariikh 5 waqti haysta maanta 20 waaye ilaa taariikh 15 beri waqti fiican haysatiin waqtigaas fiican waxa linkiga digayaa shacabka waalidiinta iyo shacabka iyo dhammaan shacabka reemandheera shirka ay qabtay waqti fiican la idinsiiyay marka dadkan si walba loo arkayo bulshadu u aragtay hooyooyin islaamihii loo shaqeynay gabdhihii loo shaqeynay
waxaa way iska rabaan waa iska rabaan gabadha maan dhaweytay hore maad waxay dhahday alla abaayo inagii fiiji ma fiicneen ay dhahday ana iskala shaqaysanay gabdho badan aan iska jecelnay oo u shaqeeyaan oo iskala joogaan marka gabdhaha xoog furfurnaana lagu arkay xoog furfurnaantaas adib waa xoog furfurnaan kartaa salaada marka soo kacdid caajiska ku saar iska kaaga cishaydaanka iska naar duceyso quraan akhriso marka salaad xilliga hore soo kacdid quraan akhriso istiyaari shaqada maantari ahaanad marka hore ugu fadhiisatay maskaxiyan ugu fadhiisatay hadda maskaxiyan isku diyaari shaqada inaad shaqeyn kartid in kale horta cuuriyaan aaba noqoteen qaarkiin kamid ah dadka qaar kamid ah say gabdhihii oo shaqaalaha iskugu dayayeen Mandheera oo iskugu dhigaalinayeen wallahi waxa ma qabsan karaan oo cuuriyaameen xitaa cuuriyaamay qaar noqday cuuriyaanimada ma aha qofka isagoo oo gacmihii lugaha leeyahay ma macnaha hadaab shaqada adiga aad qabsan kartid ilaahay lixdaada lixad ku sii aad qabsan lahayd hadaaba mar qabsan weysid waxay ka dhigan tahay cuuriyaanka wax ma dhahdid adaa is xayiraad adi nafsiyan is saartay jira xayiraadda nafsiyanka oo adiga is saartay marka iska qaad walaal gabriyahay Soomaaliyeed gabar kasta oo Soomaaliyeed waxa ku leeyahay xayiraad iska qaad xayiraada ku saaran qalbiyan jismiyan caajis adiga dhan waxa ku saaran wixii ku saaran iska qaad 15 gaas bariya haysata 15 gaas bari waxa sameeysa waliba training si sameey oo markay gabadha kula joogto la shaqeey shaqada ay qaban jirtay la shaqeey oo shaqada ay qaban jirtay sameey marka qaar saaciday marka qaar shaqada kugu soo socda oo la qabsatay ilaa meeshan qof kale ku shaqeynay ma laha magaalada leeyta waxa joogay ciidaha sayta joogay oo imaaday iyaga ka shaqeynay bariyahan dambe qof kale oo shaqaale oo helays waa yar yahay gabar Soomaaliyeed shaqaale oo yar tahay gabar kale Soomaaliyeed inay shaqeyso waa yarta bariyahan shaqada waa naceen gabdhaha shaqada waa naceen ma ku socoto shaqada caafimaad ahaan waxaan u noqotay inaad ba iska fadhiisitiin walaal marka shaqada barta oo dadka saacideeya gabdhaha saacideeya aniga horta aniga ahaan waxay ugu dambeysay shaqaala aan ii shaqeeyay waxa u maleysaa arinta inaan u diyaar garoobo ka warmee arinka inaan u diyaar garoobo ma leysaa ka waran shaqaala ii shaqeey waxay ugu dambeysay waaga adi bishi sideedad bishi sagaalaad ay ugu dambeysay shaqaala waxay qabto ka war hooleedi ilaa inta dhan anaga la sidii xoogaan u shaqeysanayno oo iska xamaarneen marka walaalayaal waxaan inay soo socdaan ma ogeyn laakiin ilaahay alxamdulillah ilaahay baaba artay marka qaar ilaahay baa waxyaabo ku fududeyna mood oo ku saacideena videoga like saar comment iyo hoos ku soo reeb dhammaan gabdhaha walaalaha oo asxaabtii dhalinyarada dhan u share garay videoga soo dhawaada